gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed cumar filish ayaa shir gudoomiyey kulanka amniga qaybta galbeed oo ay ku mideysan yihiin degmooyinka wadajir dharkeenley kaxda iyo daynile. kulankani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax, gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi, taliyaha qaybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeye guuto Saadaq Cumar Maxamed, gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha amniga. shirkani ayaa looga hadlay dhowr ajando oo quseeya dardargelinta sugidda amniga caasimadda xilli lagu guda jiro toddobaadka xorriyadda, waxaana inta uu kulanka socday uu duqa magaalada muqdisho uga mahadceliyey ciidamada amniga howlihii wanaagsanaa oo ay ka qabteen dhinaca amniga dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. madaxda maamulka gobolka banaadir ayaa warbixino kala duwan oo amniga caasimadda ku saabsan ka dhageystay taliyaha qaybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeye guuto Saadaq Cumar Maxamed, isagoo sheegay in ciidanka ay ku guuleysteen ka hortagga falal liddi ku ah amniga iyo sidoo kale fashilinta qorshayaal ay argixisada ku dhibaateyn rabeen shacabka Soomaaliyeed, hase ahaatee ay ciidanka qaranka had iyo jeer cadceedda iyo dhaxanta u taagan yihiin difaaca qaranka iyo badbaadinta shacabka. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.